waxaad ku soo dhawaataa barashada farta tilmaamaha ah ee loo yaqaano farta dadka maqalka naafada ka ah ee dhagooliyaasha iskuulka dhagooliyaasha ee Towba qaybta YouTube-ka ayaad kala socon doontaa marka aad baranayso luqadda Ingiriiska waxaad ka bilaabaysaa alifbeetada A B C D E F maadaama dadkeena Soomaaliyeed aysan lahayn far u gaar ah oo ay wax ku bartaan dadka maqalka naafada ka ah ee dhagooliyaasha ayaa casharada waxaa lagu soo diyaariyay farta alifbeetada ee Ingiriiska haddaba xarafka koowaad waxa uu muujinayaa e tilmaamaha ka baxaya oo xarafka koowaadna waxaa loola jeedaa farahaaga oo aad isku qabatay sidii adoo feertamaya oo kale taasi haddaad aragto waa e xarafka xiga oo b waa afarta far oo la taagay suulka oo la laabay xarafka c waa faraha soo qaloocisay oo aad u ekeysiisay xarafka c xarafka d waa farihii oo aad laabtay suulka ku qabatay farta murdisada ahna aad kor u taagtay sida ataxiyaadka oo kale xarafka e waxaad soo wada laabaysaa afarta farood oo meel dhexe ayaad ku qabanaysaa suulka ayaad hoos ugu laabaysaa xarafka f saddexda far ee faryarada farta dhexe iyo fardheerta ayaad kor u fidinaysaa farta murdisada ama ataxiyaadka loo yaqaano ayaad soo laabaysaa suulka ayaad ku qabanaysaa waxaa loo yaqaanaa f intaasi ayaan ku ekeysiinaynaa casharkeennii qaybta koowaad